السلام عليكم. sideed shay oo ama sideed camal oo maalin kasta ku sugaysa ka faa'iideysa laga yaabay maanta inay noloshaada wax weyn ka bedesho insha Allah waqti yar gali. imaam shaafici ayaa dhahay sideeda midka koowaad ilaahay subxaanahu wa tacaala sababtuu ku abuuray uu ka rabaa fardigi markaa qaangaartid cibaadadii maalin kasta lagugu fardiyo waa laga rabaa waa lagaana xisaabin doonaa rasuulka inaa ittibaacdid sunnadiisina waa tan labaad maalin kastay ku sugaysaa dahriga waqtiga aad dhalatay iyo tasarrufkiisa sidaa ugu noolaan lahayd waqtigaa xun waqtigaa kana meeshaana intala ma dhehaysid sidii aa ugu noolaan lahayd inaa fikir aad garaysid waaye anaga haddaan muslimin lahay noolama ogola inaa waqtiga cayno ilaahay wuxuu dhaa waqtiga waa aniga means haddaa waqtiga caysid maxay ahayd ilaahay subxaana wa tacaala ku xadgudubtay marka si alla iyo siduu yahayba waqtiga aad dhalatay waa inaad fahantid saa ugu noolaan lahayd ama aad ula ta'aqlumi lahayd oo nolol fiican uga samaysan lahayd insha allahu tacaala kan afraad waxaa waaye ilmahaaga haddaa qof ilmo la tahay quudkooda waa ku sugaya dadka qaarkood ilaa 18 sano ka gaaraan ama ka weyn ay noqdaan ilmahaaga mas'uuliyad kulli bini aadan waa mas'uul mid kastana mas'uuliyadiisa laga xisaabinayo yawm ad-diin adiga daarti tuur hooyadood ku ilow meel iskaga tuur ama hooyadu meel ha ku tuurto xisaabtaas way ku sugaysaa ama qabo ama ha qabanin labada malag oo labada garbood ka saaran marka waxaan soo dhameynay afar waa kii shanaad labada malag oo garab ka saaran kelmad inay afkaaga ka soo baxdo ama aad qalbigaaga wax ka niyotay ku sugayaan niyada wanaagsan ajirkeeda ku qoran niyada xunna laguma qoraayo wax alle iyo wax afkaaga ka soo baxano waa buug adiga aad qoranaysid oo ilaa yawm ad-diin ku sugaayo waay maalina ogaan doontaa inaad buugaag qori jirtay aad saas u gadin doontaa waxaad dhihi doontaa maali hada alkitaab laa yuqaadiru saqiiratan walaa kabiiratan ilaa axsaaha kitaabkan maxaa waaye wax yarba iyo wax weyn ay ku qoran yihiin taariikhdaa ku qoran waqtigaa ku qoran meeshaa ku dhahda shaahid yaa ahaa ma ciidda ma dhulka ma dadka wix alle iyo wixii shaahidka ahaana way ku qoran yihiin marka waxaa rabtid sheeg ummadaa rabtid ku xadgudub qabiiladaa rabtid cay boqolaalkaas way soo safan doonaan malaayiinta qabiilkaas u dhashay ajiraas siisid ma haysid intaasoo dadee xumaantoodiyaa lagugu qubaaya sayi-aadkoodii safay kuu soo galayaan dembigaa ka gashay in la eg oo maaragtay sayi-ad ah ayaga laga qaadaya adaa lagugu shubaya marka afkaaga wuxuu dhahaya ka fiirso una isticmaal cibaadada mid adiga ku anfacdo oo meel sare ku gaarsiiso marka kaas maxay ahayd shaydaankuna wuxuu kaa dalbanaya marka shaydaanku wuxuu kaa dalbanaya macsiyadii ma ku dhaafaya waswaas alkhannaas dhagtaada soo istaagaa maanta dhan wax kuu sheegaa kanay tahay oo kaasay tahay oo kan si kasto haddaad maanta iska celiso berri iska celisid weligiis kaama daalayo hal hadafuu leeyahay suu asiga ilaahay ugu kufriya inaa ugu kufrisiduu rabaa haddaadan kufrinayna kabaa'ir inaa gashiduu rabaa hadduu ku gelin waayo saqaa'ir inuu ku geliyuu rabaa waa uun mid wanaag weyn intaad samaysan lahayd wanaag yar sameeyuu ku leeyahay waa kii meel kaa goostaa marka macsiyadii kula joogaa uu kula daba taagan yahay naftaadana shahwadii ku weydiinaysaa xalaal ku keen xaaraan ku keen wax alle waxay u baahan tahay inaa u keentid ay rabtaa weyga ugu keeni lahayd waa xisaab adiga ku sugaysa naftuna waa in la diyaariyaa oo maaragtay naf oo maaragtay oo xumaan ku amrayso inaa cibaadada ilaahay la tiirsatid ay noqoto naft marna xumaan samaysa marna wanaag samaysa oo lawaamo ah kadibna wanaag badan la imaatid oo maaragtay diintaada ku dhaqantid oo nafsin mudmaina ay ku noqoto marka dadaal dheer ay nafta u baahan tahay haddaadan iska celin oo leveladaas aadan geenina adiga xumaato adduuniya xumaato aakhira ku badaysaa dalabka ugu weyn oo maalin kasta ku sugaya waa malika mowt maalin kastoo kuu dhalatay maalintii ka horreysa waa uga dhowdahay dhimashada xatman maalin buu ku qabanayaa marka isxasuusii si kasto tacmiir u sameeya noloshaada waxaa rabtid qabso ogow maalinaa laysku iman doonaa maalin uu ku imaanaa ajalin musamaa waayo cid celin karto oo la abuura male waa ilaaha magacaabay hadday imaato way timid waa tegaysa sakan una dib dhacaysa sakanna kama soo hormaraysa marka sideetaas shay naftaada sugaysaa marka maxaa noo diyaarsan faradka ilaahayna fardama ka soo baxnay sunnadii nabiga itibaaceedii inaan raacno intee ka taagannahay maanta yaa waqtiga see ula macaamiloonaa
ya haa dadkaanaa xun waxaana la sameeyey waxaa taadaa lagu raaciyey waqtiga maxaa ku samaysatay tasarufkiisa maxaa meel dhigatay maxaa aaqaro hormarsatay la inay noloshaanu ma aha nolol abadiya waa jid la maraayo jidkan maxaa ka aruursatoo wadataa ood sii hormarsatay culayska qaad laguma dhihi ilaaha kuu wado camalku waa kuu qoran yahay maxaa kala tagtay adduunyo oo kaa horeeya isweydii ya ilmahaaga iyo mas-uuliyadda ku saaran oo gurigaaga intee ka soo baxday mase hooyadiina diracay ka qaadatay aabihiina yahiim calaa wajhi ya waa iska socdaa tanfiiri biduun uunan ogeyn mas-uuliyaddan maalinaa layska xisaabinayaa waa layska xisaabinayaa qof kasta wuxuu ka mas-uuliyaa waa layska xisaabinayaa marka gurigaaga saas ku tahayna ka xisaabtan insha allah hebel aan necabahay iyo zawjkaygaan necaba ama zawjadeydaan necaba waxa kuuma tarayso mas-uuliyaddu taa kaagama harayso cilaaqaadka labada qof ee isqaba ee ka dhexeeya qabitaankooda ay isqabaan waa sharciyad waay mas-uuliyaddii isla joogooda ka dhalatana waa shay kale marka ilmahaaga ayay ku dhicin qalad adig dadkii waaweyn ay isku fahmi waayeen yaa ilmaha layska dayacin aabahood ma arkaayo iyo heblaayo ma arki karta iyo weligaa uma imaan jirna maanta u imaata iyo ka bixi naftaada mas-uuliyadda wixii idinka dhexdhexay laba qof oo waaweynaa tihiin noloshu marna way socotaa marna waa la isku xadgudbaa laakiin hala kala saaro mas-uuliyadda iyo awlaadda iyo labada qof waxay isku qabaan laakiin annagu nooma kala saarna badankeenna lama soo barin marka ilmihii baa xanuunka badankiis qabtaa labadii qof oo waaweynaay oo loogu talagalay inuu haayo ay la diilgareeyaan ilmihii la isticmaalaya aabba iyo hooyaba ama wiilku hadduu hooyada nacay ilmihiina wuu la tuuray waladkaaga waayo ya haddaada adiga maaragta aadan ka nixin haddaadan adiga garab qaban haddaada adiga maanta aadan u sabrin yaa sugaysaa inuu gacan qabto uu aabba u noqdo uu saxa ay qaladka tusiyo uu u dhimreeyo yaa ka sugaya waa maalinkii weynaadaa anyways marka insha allah taasna ha laga fiirsado mas-uuliyaadka na hala kala saaro qofkan waxaa isku qabateen iyo mas-uuliyadda ka timid isla joogiina oo awlaadiina ah oo labadiina niila wareysan doono yaan lagu xadgudbin just because gacanta idin kugu jiraan maaragtay ogow beriyaa la isku baahanaa maantay kuu baahan yihiin adna beriyaa u baahan tahay insha allah tacaala marka ilmahaaga yaa carabkana ka dadaal maanta waxaa taagannahay wax alle waxaan rabnaan dhahnaa cidna ma xisaabino carabkaaga maaragtay la ima jeeda iyo taleefonaan waxaa intee la joogaa maxaa cusub maxaa kana ooladaad waa buugaag meel kuu taalo ya waa ogahay miidiyahan maaragtay lama xisaabiyo ayaamahan aakhir zaman ay maraysaa sheekada marka ilaahay adduunyo intaa joogta ka baq aakhire inaa ka baqdidii in kale waxay kuu tari doonta male hadda inta adduunyo joogta ilaahay ka baq subxaana watacaala shaydaankana macaasidiisa meel iska gee ma harto hadday kaa ahaatana ilaahay qofkaa xigta male ilaahay wuxuu ku dhahay maaragtay laalaabashadaada yani ilaahay aa ku laalaabanaysid inuu kugu cafiyo ilaahay kama daalayo adiga laalaabashada ha ka daalin shaydaanku yuu kaa dhaadhacsiin dembiyaa gasha maxaa tahay kanaa tahay kaas ayuu ku dhihin asaa shalayto taagan annaga waqti kastaan ilaahay u laaban karnaa inta adduunyo joogno marka haddaada adi dembigaaga tirtirin yaa sugay inuu kaa tirtiro ilaahay u laabo qofna kaama xigto kii dembiilaha ii imaada iyo xumaato lagaama sheegaayo mar kastoo ilaahay u laabata marka hore waa lagaa jecelyahay ilaahay dembiga adiga aa gelaysa maalin kasta iyo kaa xayirina mar kasta ilaahay ag istaag yaa rabbi dheh yaa naftaadana shahawaadkeeda maaragta ay ku weydiisanayso isku day inay wejiha xalaala ku imaadon ilaahay raalli ka yahay tii kale soo maaha shahawaadday wax taraysa macaankeeda jannaatin wa nahar aa ilaahay kugu diyaariyey marka ilaahay kuu xalaal ku helo ama janno ku helo ummadda muslimka allah ka dhigo malaki moodna lamaba horaayee keliya nafta soo xasuusi inuu noo soo socdo mid kasto wuu hor joogaa wuuna imaan doonaa ilaahay subxaana watacaala kuwii maaragtay malaa'igta raxma loo soo diro ee nafta si sahlan looga bixiyo oo samada laga furo allaha naga dhigo rabbiga raxmaankaana dunuubteena oo dhan ha cafiyo kii dhintay iyo kan nool iyo kan dhalan doono insha allahu tacaala ilaahay anagoo dhanna jannaatin wa nahar fii maqcadi sidqin cinda maliikin muqtadir hanagooda kulmiya asalaamu calaykum